toddobaadkii ugu dambeeyey waxaa warbaahinta somalilan si aada loogu sii daynayey warar ku saabsan eedeymo u jeediyeen culimadiinka gobolka awdal gudoomiyaha gobolka awdal ay ku eedeeyeen in diinta waxaayey gudoomiyuhu ka jawaabay culimaduna iyaguna eedeyn bay u jeediyeen bal dadka dib oona xusiyo intaan kusoo noqon xubinta falanqeynta warka eedeyntaas dhaafsadeen gudoomiyaha gobolka awdal iyo culimadiinka mid ka mida gobolka awdal oo markii hore hawshiisa ku bilaabatay aan daawano gobolka maartay meel lagu shirayay ayaa shalay waxa la sheegay ninka gobolkan haystaay inuu diinta caay oo ilaahay caay anu saddex isaga canaanan maayo kuwa soo magacaabay ee saar raalli ka ah inuu diinta caayo horta waa gaal ninkaas weyn waa shahaataa dib waa shahaataa waa gaal waxaan idin sheegay marka ugu horeysa horta qof islaam ah laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku shahaatay oo islaamku ah horta xasan masaajidkan wuxuu ka dhigtay orientation maaha maalintii ugu horeysay ka hadlo maalintii ka horeysay ee uu cid ka maago ama ka caayona maaha wuu caadaystay xasan waa nin al-shabaaba oo ku dagaalamaya dowladda dhan ee jirta doonaya inuu afku sabab aan diinta ku caayay iyo ila qofku intuu xaflad tago diinska ma caaye aan diinka caayay ma jirto jimcii magana dhaafay masaajidada dawixii ka baxay waa arkayseen oo culimadii magaalada waaweyneyd ayaa soo fadhiistay salaadii jimcaha diinteena waa nasteexo oo diinteenu dee ma ogolo xataa qofkii la fadeexadeedu xataa wax sameeyo qofka hoos wax loogu sheegaa laakiin fadeexadda waa ceeb culimadu waxay ka hadlaysay oo ay lahayd maxay ahayd ninkii gudoomiyaha gobolka diintu caay wax cadna ma ahayn oo wax hadalka dhibta sii weyni weeyaan waxa la igu yidhi ninkaas diintu caay dee wax maaha caqli galataas waxa la igu yidhi qofku markuu wax cad hayo inuu xaydin yidhaahdo intaasoo qof baan dhaariyey intaasoo qofoo markhaatiyalaan dhaariyey arrintaasi ninkaa way ku cadday marka dembigaasu galay yuusuf biixi waa garyaqaan madax bannaan oo reer somalilan ah hore wuxuu ahaan jiray ku-xigeenkii xeelaalyaha gobolka murudijeex xubinta falanqeynta ayuu marti ku yahay saab t v aada buu mahadsan yahay eedeymahan dhacaya labada dhinac ka imanaya ugu horeyn maxaa kaaga baxay adigoo la socday bismi illahi raxmaan raxiim xamse sidaa aada sheegtayba labadii toddobaadii ugu dambeeyey waxaa ka socday eedeymo diin cayo lagu eedeynayay barasaabka gobolka awdal inuu diinta meel fagaaraa ku caayay diinteena suubana islaamka culimaduna ay ku eedeynayeen in barasaabkaasi madaxweynuhu xil ka qaado iyagoo marka ugu horeysaba ay ahayd procedureka ay u mareen mid qaldan in fagaaro un madaxweynaha laga soo faro fariin ama masjid looga yeedhiyo in hebel xilka laga qaado taasi horta muhiim may ahayn manay habboonayn procedure ay u mara lahaayeen baa jira oo ciddii diinta caayi lahayd la gelin lahaa xafiiska xeerlaalinta gobolka oo kale dabadeed xafiiska xeerlaalinta marka baaristaa uu amro ee la soo baaro ee la helo ama ay ku caddaato in uu barasaabku diinta caayay xeerlaalyaha guud buu usoo qori lahaa qoraal oo uu usoo gudbinayo in maamuuska xayoobin xeerlaalyaha guud laftarkiisu madaxweynaha uu kaga codsanayo in ay ku caddaadeen dembiyada noocaasi oo xilka laga qaado si sharciga looga abaalmariyo qodobka dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 8 ayaa wuxuu ka hadlayaa in muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan ay u siman yihiin sharciga hortiisa dembiyada haddii dembi ay noqoto in qof kastaaba laga abaalmariyo dembiga uu galay laakiin culimadu waxay ku doodayaan waxay leeyihiin diinta islaamku dee ma ogola diinta la caayo caddeema hayn ay leeyihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha uu hadlay isna wuxuu sheegay in haddii caddin ay soo bandhigaan marka maxaa labada jawaab waxaa kaga baxay labada jawaab waxaa ka baxay procedureki wanagan kule waxaa ka qaldamay tiifiyadun bay ka hadlayeen ilaa maanta ugu dambeysay tiifiyadun bay ka hadlayaan weli may marin wadadii lagu eedeyn lahaa barasaabka oo ah in procedureka aan sheegay ay u maraan oo la baaro oo cadaymihii la horgeeyo xafiiska xeerlaalinta oo baarista ugu sarreeya xeerlaalyaha guud laftarkiisu madaxweynaha ka codsado in xasaanada laga qaado
sidaana marka xasaanada lagu qaado waa lagu eedayn karaa ama wuxuu ku noqon karaa dambilaawe marka xeelaliya guud la horgeeyo baaristiisa in aan wax dambiye gelin barasaabku sidoo kale wasiirku waxa uu isaguna difaac la galay barasaabka waana mid isaga laftarkiisu aanu u marin habkii loogu talagalay in wax loo baaro haddii ay baaris doonayo ama cid ku eedeysa isaga laftarkiisu tiifiyadu ka faray oo yidhi ha keenaan waana mar labaad sii qarxisay caadifadii diinta ay sheekhyadu ku difaacayeen mar labaad bay sii qarxisay marka haddii labada dhinacba wadadii ay u mareen sharciga wasiirku laftarkiisu wuxuu uu ku tallaabsaday inuu tiifiyaduna isaguna uga jawaabo idhaahdo ha la keeno caddaymo caddaymaha tiifiyada lama keenin waxay ahayd in uu haddii uu doonayo baaristii uu idhaahdo ha la keeno culimadii wax ka sheegtay uu la kulmo oo uu u diro baaristaa wixii ka soo baxana laga go-aan gaadho laakiin inuu tiifiyada isaguna haddana mar labaad u mariyo may ahayn arrinkaasi gobolka xasaasiyadu ku kiciyey inagu warka rasmiga ma hayno laakiin tiifiyada ka dhegeysan marka ka sharci ahaan maxaad is leedahay dee tashankii dhinaca diitriimka aad buu kor bu kacay maxaad is leedahay waa lagu daweyn karaa oo khilaafka imika dhex maray guddoomiye gobolka iyo culimada maa in la taga xeerlaalintii saad sheegtay dacwad loo gudbiyo waa si wanaagsan xalka ugu fiicane maanta aan halkan baraha bulshada u marinayno dadka danaynayey ama diincaygaa ka damqaday gobolka awdal culimadaas waxaan odhan lahaa procedurku wuxuu idin faraya in aan tiifiyada laga hadale waxaad tagtaan xafiiska baarista ugu sarreysa oo ah xafiiska xeerlaalinta wixii ka soo baxana macluumaadka madaxweynaha la wadaagaya madaxweynaha tv-ga lagama amraya lagama odhanayo xilka hebel ka qaad oo halkaa looma marinayo si procedurala xeerlaalyaha guud baa ka dalbanaya in xasaanada laga qaado dabadeeto sidaas ayaa mas-uulkaa lagu eedeynaya haddii uu dembi galay haddii kalena uu dembilaawo ku noqon doonaa sidoo kale dee waxaa jirtaa baryahanba waxaynu ogeyn hore wasiiro waxba loogu waayey loo soo eedeeyey oo aan tallaabo sharciya looga qaadin oo masuq maasuq lagu eedeeyey oo aan mas-uuliyaddii ay lahaa sharci fare aan laga qaadin qodobkaa sideedaad oo kale a muwaadiniintu aanay u sinaan xarigga maalin walba xabsiyada waxaa ka buuxa qodobkan diincaygu waa 313 xeerka ciqaabta guud xabsiya xukunkiisu waa 2 sano iyo wixii ka yar ayuu xukunkiisu noqdaa maalin walba de xabsiyadeen waxaa ka buuxa diincay muwaadinkana waa muwaadin ula siman muwaadiniinta haddii uu sharciga khilaafay morali maca haddii xukuumaddu doonto inuu sii ahaado barasaab maybe inaanay suurtoobeyn waayo morali bulshadii uu hogaaminayey ama uu ahaa barasaabka ayaabaan waxba ka dhegeysanayay markaa sidii mas-uuliyiinta hore loogala orday xarigga yaan mas-uulkana loogala ordinay haddii uu sharciga khilaafay madaxweynaha waajib baa ku saaran sida qodobka dastuurku sheegayo in ay muwaadiniintu u sinaadaan sharciga marka waxaad leedahay mas-uulka xilka haya iyo muwaadinka maxkamadaha tagaan oo lasoo dacwiyo usinaadaan ha u sinaadaan haddii lagu waayo lagu waayo waatay ugu dambeyn yuusuf bixi dee muddo badan haa jirta xeerlaalinta kiisaska noocaana udhexeeya wadaadada iyo mas-uuliyiinta marna mid soo maray maalin walba waxaad arkaysaa qof muwaadina oo ay guddida wanaag faristo ay dabada ka riixayaan eediisa oo xafiiska xeerlaalintii maxkamaddaba ku daba joogaan diintuu caaye hebel waa wax wanaagsan diincaygii way naga yaraysay laakiin markay mid mas-uulo dabada ka wadaanna waa inaan la difaacin ka maskiinka aba ciidamo difaacdo oo waa markiiba waa loogu xaquuqaa dembiga waa laga abaalmariya wixii uu galay ka mas-uulkiina way dhacdaa markaa mas-uuliyiin diin lagu soo eedeeyey waa markii ugu horreysay aan arkoon intii xeerlaalyaan ahaa hore umaan arag mas-uul layidhi diintu caayey oo isagoo xilka haya lagu eedeynayo waa markii koowaad iminkana laakiin sharcigeenu wuxuu ina faraya inaan tiifiyana laga qaylin madaxweynahana aan tiifiye amar laga siin laakiin procedurkaa markay maraan tiifiyada ha ka hadlaan oo ha qayliyaan haddii la mari waayo oo iyagoo wax ku caddeeyey oo maragyadii maxkamadda horgeeyey ama xeerlaalinta horgeeyey oo lagu caddayn waayo markaasay u bannaantay in tiifiye ay ka hadlaan iminka laakiin waxaan kula talin lahaa culimada sida ugu fiican ee xalka lagu gaarhaya waxa weeyaan
in wixii marag hayaan maxkamadda xafiiska xeerlaalinta ay horgeeyaan baarista ay ka dalbadaan mas-uulka laftarkiisa wixii isku difaacaya halkaa lagu weydiin doonaa xeerlaaliyaha gobolka markuu ku qanco in dembi dhacay eedeysanahayii kii dembiga galay barasaabkii ma soo xidhi karo laakiin xeerlaaliyaha guud buu u soo gudbinayaa qoraal ah inay waxaas ku caddaadeen iyo galkii baaristaba xeerlaaliyaha guudna madaxweynuhu wuxuu ka dalbanayaa in xasaanadda laga qaado si looga abaalmariyo dembiga uu galay haddii kalena halkaa xeerlaaliyaha guud bay ku dhammaanaysaayo dembi laabuu noqonaya waxbaa lagu waaya la odhan doonaa horta mas-uuliyadda ugu weyn iminka wuxuu saaran yahay xafiiska xeerlaaliyaha guud oo madaxweynihii maaha inuu ku go-aan qaato culimo ka hadashay t v baarista waxaa maamulaa xeerlaaliyaha guud inuu isagu la farageliyo oo uu ka jibo keeno in uu barasaabkaasi dembiga lagu eedeynayo galay iyo inaanu gelin isagana waa inay cidi usoo ashkatootaa cidda usoo ashkatoonaysaana waa culimadii markaa intaani madaxweynuhu aanu go-aan ka gaadhin in mas-uulkan xilka laga qaado waa in aan isagana muwaadinnimadiisa lagu xadgudbin barasaabka laftarkiisa oo in xuquuqdiisa lagu xadgudbin oo hiyarsay ama kutirikuteen aan halkaa lagaga qaadin xilka ee wax cad lagaga qaada haddii xilka lagaga qaadayo marka waxaan anagu soo jeedinaa in xeerlaaliyaha guud laftarkiisa ay faraha la galo dacwaddan oo uu ogaado in mas-uulkani uu yahay mid diinta caayay iyo inaanu hayn hadduu noqdo dembilaawe sharciga ka hor caddeeyo inuu dembilaawe iyo inuu dembigaas ku caddaan waayo wax maragana aan loo hayn haddii uu dembi yeeshana in uu horgeeyo madaxweynaha oo qoraal u qoro oo qoraalkaasi madaxweynuhu kaga soo jawaab celiyo in xasaanadda laga qaado sidaana lagu saaro maxkamad aad baad mahadsan tahay kaas waxaa garyaqaan yuusuf biixi oo ah garyaqaan madax bannaan hore wuxuu ahaan jiray ku-xigeenkii xeerlaaliyaha guud ee gobolka murudijeex aad buu mahadsan yahay saab t v ayuu la wadaagayey xubinta falanqeynta ku saabsanayd eedeymaha iminka u dhexeeya gudoomiyaha gobolka awdal iyo culimaudiinka gobolka awdal oo ku eedeeya gudoomiyaha in diinta u caayey isaga laftiisa ku isdifaacay waanu beeniyey marka aad buu mahadsan yuusuf biixi oo falanqeynayey qaabka sharci ee ku habboon oo loo geli karo dacwaddaasi aad buu mahadsan yuusuf waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhnow adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida